الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tulanti waxaan caruuray ku soo dhawaada kacnaha sideedaad qisooyinka saxaabada oo idin soo jeedin doonaan ardayda xanaanada caruurta iimaan. Haddaba aan dudadalno taxanaha sideedaad waxaan idin socodsiin doonaa anigoo ah Asma Bashiir Axmed. waxaan ku soo qaadan doonaa saxaabiyada weyn ee Caaisha bint Abi Bakr. caruuray aan dudadalno saxaabiyada weyn ee Caaisha bint Abi Bakr. waxaan ka hadli doonaa caruuray nasabteedii iyo dhalashadeedii. caruuray waa Caaisha Abu Bakr as-Siddiq, waa hooyada muuminiinta. waxaa dhalay khaliiftii toobaad ee islaamka waa Abu Bakr. hooyadeed waxaa la dhihi jiray Rumaan bintu Caamir. waxay Caaisha ku dhalatay magaalada Baratanse ee Makka al-Mukarrama soo diridii Nabiga 4 sano kadib. waxay Caaisha tunyo u ahaa caruuray Cabdullaahi, taas oo ahaa wiil ay dhashay walaasheedii Asmaa. caruuray waxaan ka hadli doonaa Caaisha iyo nabigeena suuban duurtoodii. hooyadeena Caaisha waxaa duursaday nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam hijradii ka hor, wuxuuna la aqal dalay sanadkii 2aad ee hijrada ayada oo 9 jir ah. markii uu ka soo laabtay caruuray dadaalkii Badar, wuxuuna tula aqal dalay magaalada Madiino. caruuray waxaan ka hadli doonaa jaceylkii uu qabay nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam. aad ayuu u jeclaa hooyadeena Caaisha. taasna waxaa tusaya adiladii ku soo aroortay, waxaana ka mid ah xadiistii la dawariyay Camar bin Caas. caruuray wuxuuna leeyahay nabiga ayaa la weydiiyey dadkii aad u jeceshahay, halka nabigu uu u warceliyay waxaan u jeclahay Caaisha. kadib waxaa la dhahay waxaan ka wadnaa ragga, halka nabigu uu jawaabay aabaheedii. markii uu u dambeysay noloshii nabiga, waxaa la dareemay wejigiisa in uu rabo in lagu dabiibo xanuuntiisii durida Caaisha. sidoo kale Caaisha aad ayay u jecleed nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam, taas aanan meeshaan lagu soo toobi karin. caruuray waxaan ka hadli doonaa cilmigii iyo fiqigii Caaisha. Caaisha waxay ka mid ahayd mid aad joogta isha waaxida, taas oo ka dhigtay mid nasiib badan taasha diinta islaamka ilaa loogu laabto masaa-isha diinta. sidoo kale Caaisha waxay ka mid ahayd saxaabadii ugu warinta badan xadiista nabiga sallallahu calayhi wasallam, waxayna nabiga ka warisay 2210 xadiis. caruuray waxaan ka hadli doonaa diiradii hooyadeena Caaisha, ilaahay ha ka raali noqdee. caruuray waxay diiriyootay habeen Talaado ah 17 bisha Ramadaan sanadkii 58 hijriyada ayay diiriyootay hooyadeena Caaisha, ilaahay ha ka raali noqdee. waxaa lagu aasay qabuurihii Baqiic ee magaalada Madiino. wax caruur ah oo maysan dhalin nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam. caruuray intaas ayaan ku soo xiri doonaa qisadii hooyadeena Caaisha. sidaas iyo nabadgelyo.